السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي قاليقا كسر ولا مركل يعلمي تك يوتيوب channel ka ku cusub subscribe hadii aad joogto inay joog video laga share and comment iguna waa aragtidii isku soo noqod wanaagsan saaxiibada qaaliga ah video maanta waxaan idinku la wadaagi doonaa anugu hadli doonaa speedka laptopka qaar mid waxa ku qoran 1.7 gigahertz mid waxa ku qoran 2.7 gigahertz hadaba labada laptop midka ay ku qoran tahay 1.7 miya speed badan mase waxa uu xawaaro badan midka ay ku qoran tahay 2.5 hadaba hadii aad xiiseynaysid arintaas daawo videogan ilaa dhamaadka lana sii sheegay saaxiibadaada hadaba saaxiibayaal muhiimada videoga ayaa waxa ay tahay markii aan laptop speedkiisa iska fiirinayo waxaan iska fiiriyaa speedka meeshan ku qoran hadii uu doonaha ahaado 1.7 ama ha ahaado 2.7 ama 2.6 su'aashaas jawaabteeda ayaa waxa ay tahay muhiim ma ahan in aad laptop markii aad iibsan rabtid aad ku qiimeysid speedka meeshan ku qoran oo aad dhahdid laptopkani speedkiisu waa 2.8 oo wuxuu ka speed badan yahay laptop kale oo ah 1.7 taas ha ku fikirin sababtoo ah saacadan waxa ay xisaabiso waxa weeyaan hal mar markaad meel click siiso inta time ay ku qaadanayso ama hal application markaad furaysid time-ka ay ku qaadanayso ayay qiimeysaa oo waxa la dhahaa speed clock ayaa la dhahaa marka ma qiimeyso laptopka iyo shaqo ma ku laho hadaba waxyaabaha laptopka aad ku qiimeynaysid speedkiisa ayaa waxa kamid ah sida coreskiisa laptopka ma 2 cores 1 cores ma 4 8 6 meelahaasna iska fiirsid waa coreska sidoo kale processorkiisa ma core i7 ma core i5 mase waa core i3 ama se waa core i9 inaad taasna iska fiirisidna taas ayaa muhiim ah sidoo kale waxaa muhiim ah inaad iska fiirisid laptopka generationkiisa taas oo ku cadeynaysa laptopkan xilliga uu soo baxay ama sanadkii markaas uu soo baxay sidoo kale RAM-ka laptopkan ku jira ma RAM weyn ayaa ku jira 4GB ma ku jira ma 8GB ku jira 16GB halkaas waa inaad ka fiirisid RAM-ka hadaba laptopkan ku muuqda processorkiisu waa i5 sidoo kale waxa uu soo baxay 2018kii waa 8 generation RAM-kiisu waa 8GB speedkiisana waxa ku qoran 1.6 sidoo kale laptopkan ku muuqda waxa uu soo baxay 2013kii waa 3rd generation processorkiisa waa Core i5 RAM-kiisuna waa 4GB 4GB speedkiisana waxa ku qoran 2.6 halkaas marka aan joogno adiga ay ku xiran tahay midka aad dooranaysid ma waxaad dooranaysaa laptopkan generationka dambe leh ee marka dhow soo baxay sidoo kalena RAM-kiisu aad u sareeyo aadna u quruxda badan mase waxaad dooranaysaa midkan duqa ah laakiin speedka meesha ku qoran ayaa high ah oo kaas oo aan hore kugu sheegin oo san wax macna lahayn hadaba si aan u fiirino informationkaas waxaan ku hormarinaynaa laptopka kii hore ee soo baxay 2018ka hadii aad ku dhufatid meesha search-ka qaybta search-ka ee aad ku qortid system information waxa ku soo bixi doona information kor ayaa ku soo bixi doona oo ku dhufanaysa marka ku dhufatidna waxa ku soo bixi doona wax walba oo laptopkan ku saabsan dhowr shay oo muhiim ah ayaa marka kula wadaagi doona ay tahay inaad iska fiirisid markii aad laptopka gadanaysid midaan ku hormari doona waa system model waa laptopkan magaciisa iyo waxa uu yahay system model horteeda waxa ku qoran HP EliteBook kaaga nooc kale ayuu noqon karaa taasi waa laptopka magaciisa oo dhameystiran sidoo kale waxaad fiirin kartaa hadana qaybta kale ee ka hooseysa markaas waa processor waa laptopka processorkiisa iyo waxa uu yahay laptopkan marka midda ugu horeysa waa Core i5 inuu yahay i5 ayaa meeshaas ku qoran numberka ku xiga waa 8 waa generationkiisa sanadka uu soo baxay waa laptopkan waxay cadeynaysaa inuu soo baxay ama uu yahay 8 generation midda ku xigta ayaan sii fiirinayna marka oo qaybta shiisha ugu dambaysa meeshan waa coreska laptopka meesha ay laptop iyo dhan ku kala duwan waa meeshan laptopkan waxa uu wataa 4 ayuu wataa aad ayuu speed badan yahay mar haddii uu 4 wato haddii la qaybsan waxay noqonaysaa 8 oo wataa saa ka sii horeysa marka laptopkan waa laptop aad u speed badan midkan waa laptopkii duqa ahaa kii weynaa weeyaan marka waan fiirinaynaa asna system informationka isla sida ayaan asna u fiirinaynaa marka aan fiirino informationkii ayaa soo baxaya isla shaashada ayaa soo baxaysa modelku waa kaasa waa 840 midkan waa ka duwan kii hore processorka Core i5 weeyaan sidoo kale
أنا سنة كأصاب بحينا وسدح ويان أو third generation وايان sidoo kale كورسكي ماشي أنا أو كاس أفرتك هاي كان لبا أيوكي هاي ماشي لوجيك أحد أيضا وقيب سمايين أو كاس سديدك هانا كان أفر أيوكي هاي marka waad fahmi kartaa midka awoodda badan laptop walba laptopka oo ka koris badan yahay waa ka qaalisan yahay waana ka shaqo qabad badan yahay laptop waxaad arkaysaa ay ku qoran tahay 1.6 laakiin awoodiisa game walba iyo video walba iyo shaqo walba qaban kara iyo mid ay ku qoran tahay 2.5 ama 2.7 ama 3 ay ku qoran tahay laakiin wax uu qaban kara aysan jirin si walbaba muhiimadu waa Coreska generationka RAM-ka iyo Core i5 iyo Core i7 midda uu yahay waan filayaa saaxiibayaal inaad videogan wax ka faa'iiday haddii aad wax ka faa'iiday la sii wadaag saaxiibadaada si ayagana wax uga faa'iidaan intaan kulmi doono videogan videoga xiga waxaan idinkaga tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh